بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa farxad ah inaan maama Faadumo Jibriil aan ku soo booqday xarunteeda ay degan tahay Durduri halkaan runtii waxay muujinaysaa dhowr shay bay muujinaysaa waa run marka ugu horeysa in dhulkeena uu yahay dhul hodana uu u baahan yahay inaynu wax ka faa'iideysano oo waxa aynu cunayno isaga aynu kala soo baxno midda labaad nolosheena xoolo dhaqataynu nahay waxaynu ku xirannahay deegaanka inaynu ilaalino taasoo ay maamadu wax badan ka shaqaysay dadkeenana loo baahan yahay in layna garansiiyo geedkan ku noolnahay xoolaha aynu haysano oo dahabka iyo shidaalka inoo ka qaalisan geedkaas ay cunayaan haddaynan geed ka dhaqaalayn nolosheenu waxa weeye sii jiri mayso marka dadka waddanka jooga anigu waxaan ugu baaqayaa in ay deegaankana ilaaliyaan dhulkeena khayraadka iyo barwaaqada ku jiraan ay kala soo baxaan baddeena khayraadka iyo barwaaqada iyo kalluunka ku jira aynu kala soo baxno dhulkeena iyo baddeena iyo biyaheena intaba aynu cadow ka ilaashano waxaan marka iyaduna ku soo dhaweynayaa maama Faadumo si ay iyaduna bal inoo ka warbixiso hawshan ballaaran wixii dardaaranana ay u jeedisay dadka Soomaaliyeed ee maqlaya gudaha iyo dibadda maama ku soo dhaweey waa mahadsantahay aad baan ugu faraxsanahay inaad ii timaadid oo halka iigu timaadid muddo wax badan baan is dhaqaanay hadda indoora adoo weli dhalinyaro koofiyad sidan baa igu kaadamaysay waan ku faraxsanahay maanta inaad halka iigu timaadid halkan waxaa la yidhaahaa Durduri tuuladan waxay ahayd meel aad isaga yar laakiin deegaankeedu oo dadka ku nool aad u yar yahay shaqadeeda ugu weynna ay markaa hayeen waxay ahayd dhuxul gubid dhulka aad arkayso aad moodaysa xaraaga oo marana dadkaasaa cunay oo dhir 1000 sano 2000 sano jirtay way ka cuneen oo dhuxul